Trump oo qiray in Maraykanka ay haysato hub la'aan isla markaasna dagaalka Iran dhawaan uu soo afjarmi doono. Sacuudiga oo ka digay weeraro isu dabaridan oo uga imaan kara Xuutiyiinta, Iran iyo maleeshiyaadka Ciraaq. Iran oo dignin ka soo saartay qorshaha Maraykanku ku ballaarinaya kuna casriyeynayo hubkan wax gumaadaha ee nuclear-ka. Sacuudiga, Pakistan iyo Turkiga oo maantay kala saxiixanaya heshiis difaac oo wada jira. Laanta sirdoonka Israa'iil ee Mossad oo shaqada ka cayrisay saraakiil fara badan kadib fashilka ujeedooyinkii dagaalka Iran loo galay. Ku dhawaad 20 qof oo dhimasho dhaawac ka soo gaaray toogasho arday 14 sano jir ah oo ka geystay iskuul ku yaal dalka Thailand. Dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu nahwada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka. Saaka waxaynu ku hormaraynaa magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga, halkaasi oo maantay dhacdo weyn lagu wado inay ka dhacdo. Waa heshiis iskaashi dhanka difaaca military oo ay kala saxiixan doonaan Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga. Saddexdan wadan ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxay wadeen wada hadallo arrimahani la xiriira. Aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani. Hogaamiyaasha Saudi Arabia, Pakistan iyo Turkiga ayaa lagu wadaa inay maanta oo Jimcaha magaalada Jeddah ku kala saxiixdaan heshiis difaac oo saddex geesood ah sida ay sheegeen ilo xogogaal ah oo ku dhow dowladahaasi iyo hay'adaha amniga. Warar ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee AFP iyo Reuters ayaa tilmaamaya in heshiiskan muddo dheer laga wada hadlayay, balse isbedelada amni iyo kuwa siyaasadeed ee ka socda gobolka ay dedejiyeen dhamaystirkiisa. Heshiiska ayaa waxaa la filayaa inay qaranka ku doogaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa horaantii sanadkan wuxuu xaqiijiyay in Ankara ay waday wadahadallo ku saabsan heshiis difaac oo ay la yeelanayso Sacuudiga iyo Pakistan. Sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Pakistan ayaa sheegay in qabyo qoraalka heshiiska la diyaariyay kadib wada xaajoodyo socday ku dhawaad 1 sano. Wasiirka wax soo saarka gaashaandhigga Pakistan Riza Hayat Haraja ayaa daboolka ka qaaday in heshiiska saddex geesoodka ahi uu ka madax bannaan yahay heshiiskii laba geesoodka ahaa ee Sacuudiga iyo Pakistan ay ku dhawaaqeen sanadkii hore, isagoo xusay in qabyo qoraalka la dhamaystiray isla markaasna ay saddexda dal ku gada jiraan ansixintiisa iyo in la dhamaystiro. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif iyo taliyaha ciidanka Pakistan General Asim Munir ayaa Khamiistii shalay ahayd waxay gaareen dalka Sacuudiga, halka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan maanta uu tagayo Jeddah si uu uga qayb galo munaasabadda saxiixa. Sacuudiga iyo Pakistan ayaa horay u lahaa iskaashi difaac oo laba geesood ah. Hase yeeshee heshiiskan cusub ee saddexda dal ayaa la filayaa inuu ballaariyo iskaashiga dhinacyada difaaca, tababarada ciidamada, warshadaha militariga iyo isku duwidda amniga gobolka. Warbaahinta caalamiga ah ayaa sidoo kale waxay xustay in heshiiskan uu soo jiitay indhaha caalamka iyadoo ay jiraan su'aalo la xiriira suurtagalnimada iskaashi ku saabsan tiknoolajiyadda nuclear-ka, maadaama Pakistan ay ka mid tahay wadamada ku hubaysan nuclear-ka. Waa hagaag warkan iyo weliba wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. Haatan waxaynu ku sii soconaynaa war kale oo Sacuudiga la xiriira, warkan oo la sheegayo dhiilo culus inuu xambaarsan yahay. Mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Sacuudiga ayaa farta ku fiiqay in warbixino sirdoon oo ay wadaageen Sacuudiga, Maraykanka iyo dalal bariga dhexe ku yaal ay muujinayaan in maleeshiyaadka hubaysan ee Ciraaq ay iskaashi la sameynayaan dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta ee Yemen
iyadoo la sheegay in ay qorsheynayaan weeraradan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dusha sare ay kala soconayaan ayna isku dabaridayaan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC. sida ay baahisay wakaaladda wararka Reuters, mas'uulka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa waxa uu sheegay in weerarada la filayo inay beegsan karaan kaabayaasha rayidka iyo dhaqaalaha oo ay ku jiraan xarumaha tamarta, garoomada dayuuradaha iyo dekedaha. mas'uulku wuxuu sheegay in dowladda Sacuudiga ay la socoto dhaqdhaqaaqyo la xiriira gudbinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sawaariikh, taasi oo muujinaysa in weeraro isku mar ah lagu soo qaadi karo waqooyiga iyo koonfurta dalka Sacuudiga. warka ayaa waxa intaasi ku daraya in qatartan ay ku soo beegmayso xilli Riyaad ay sii wado dadaalada dhanka diblomaasiyadda ee lagu dejinayo xiisadaha gobolka, waxaana la xusay in weerarada la qorsheynayo ujeedadoodu ay tahay carqaladaynta wadahadallada nabadda sida hadalka loo yiri. mas'uulkan waxa kale oo uu sheegay in iskaashiga amni ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Mareykanka wali uu yahay mid heerkiisu aad u sareeyo, isla markaasna Sacuudigu diyaar u yahay inuu qaado dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah si uu uga jawaabo weerar kasta. geesta kale, isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee taageera dowladda Yemen ayaa waxa uu sheegay in 11 qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen weerar lagu eedeeyay Xuutiyiinta oo ka dhacay gobolka xuduudda ku yaala ee Najraan. dhaawacyada ayaa la sheegay inay isugu jiraan muwaadiniin Sacuudiyaan iyo weliba sidoo kale dad u dhashay Yemen, Masar iyo Pakistan. Xuutiyiinta ayaa dhankooda horay u sheegay inay weerareen 2 markab oo shidaal oo Sacuudiga uu leeyahay. mid ka mid ahna wuxuu gooshayay gacanka cadmeed, halka kalena uu marayay ama ku sugnaa meel ku dhow dekedda Yambu ee badda Cas. iyadoo la sheegayo in weeraradu ay qayb ka yihiin waxa lagu tilmaamay go'doomin badeeda oo uu soo rogay ururka Xuutiyiinta. ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Sacuudiga. wararka aynu ku sii soconay xagga dalkaasi Thailand ayaynu eegaynaa, halkaasi oo maantay arrin culus ay ka dhacday kadib markii la sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday iskuul ku yaal dalka Thailand, sida ay tabisay warbaahinta gudaha oo booliiska soo xiganaysa. shabakadda warbaahinta ee Thai PBS ayaa waxay sheegaysaa in dadka dhaawaca tiradooda imika ay gaartay 15, waxaana Reuters ay baahisay in 2 qof ee dhintay mid ka mid uu yahay macallin, waxaana wararku sidoo kale ay sheegayaan in dad kale oo ka mid ahaa ardaydii wax ka baranaysa halkaasi ay ku dhaawacmeen. booliiska ayaa waxa uu sheegayaa in qofka weerarka geystay uu ahaa wiil 14 jir ah oo fasalka 9aad dhiganayay, waxaana lagu soo warramayaa in xaaladdu ay tahay mid cirka ku shareeran. wixii warar arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe. Trump oo qirtay Mareykanka in ay ku sii yaraanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana uu sheegaya dagaalku inuu soo afjarmi karno. laanta sirdoonka ee Israa'iil oo shaqada ka eriday saraakiil fara badan kadib markii lagu fashilmay ujeedooyinka dagaalka loo galay. intaana u gudbin wararkaas iyo warar hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay aynu ku hakanno qadar xayeysiina. Qari Online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta, taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari Online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada Qari Online, la xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda. Imara Luxury Homes, daldalaal layskama raacee, kuwani waa dhismayaasha Imara ee dhaxalgalka. dhismayaasha Imara waxay ka kooban yihiin 2 qol, 3 qol, 4 qol
iyo fadhiyadooda guryo dublekisa iyo kuwa benthousesa qolka shaqaaluhuna meesha kama maqna iyo wax kasta oo ay xaafad gaari u baahnay labada dhisme ay shirkadu hadda gacanta ku hayso dhismaha koowaad waxaa laga dhisayaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana uu ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu ku yaalaa Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Dunsbury Road wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube Facebook Twitter iyo Telegram warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna wajbiyan oo ka dhigo wehelkaaga wararka hagaag xaaladaha bariga dhexe aynu eegno iyadoo weli xaaladdu ay tahay bariga dhexe ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in dagaalka Iran uu soo afjarmi doono dhawaan isagoo isla markaasna qiray in ciidamada Mareykanka ay haysato caqabad la xiriira kaydka qaar ka mid ah noocyada hubka casriga ah isagoo la hadliyay dadka wararka fidiya xilliga ku sugnaa aqalka cad Trump wuxuu sheegay in Iran aysan awoodi doonin wasidalku uu yiri inay dagaalka sii wado muddo dheer waxaan u malaynayaa inuu dhammaan doono si dhakhso ah dagaalku uma malaynayo in ay sii wadi karaan muddo dheer dagaalka ayuu yiri Trump mar wax laga weydiiyay dagaalka hadaladiisan ayaa waxay yimaadeen kadib warar isdaba joog ah oo ku aadan in Mareykanku wajahayo cadaadis isa soo taraya oo ku saabsan kaydkiisa hubka intii uu socday dagaalka 5 bilood qaatay gaar ahaan gataalada ridada dheer iyo nidaamyada difaaca cirka Trump wuxuu ku andacooday in Mareykanku uu haysto kayd aad u badan oo ka mid ah noocyada qaar ee hubka balse wuxuu qiray in kaydka noocyo kale culays uu ka jiro waxaan leenahay noocyo rasaas iyo hub aad u awood badan kuwaasi oo aan u haysano kayd aan xad lahayn ama ku dhow xad la'aan waxaana jira noocyo kale oo xaaladdu ay yar ciriiri tahay ayuu ku andacooday madaxweynaha Donald Trump dhanka kale ila ku dhow dadaalada dhexdhexaadinta iyo saraakiil la hadlay warbaahinta Mareykanka ayaa waxay sheegeen in Washington ay qorsheynayso inay qaado go'doominta dhanka badda ee dekedaha Iran iyadoo sidoo kale laga yaabo inay saarto ogolaansho ku meel gaar ah ama ay soo saarto ogolaansho ku meel gaar ah oo la xiriira dhoofinta shidaalka Iran wararkan ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli Trump uu muujinayo rajo wanaagsan oo ku aadan wada hadallada isagoo hadaladii dhawaan uu ka jeediyay aqalka cad ku sheegay in arrimuhu ay si wanaagsan u socdaan isla markaasna heshiis uu dhow yahay dhanka badda cas iyo baabalmadam xog ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayna ka soo xigatay shirkadda Kepler ee la socota dhaqdhaqaaqa maraakiibta ayaa waxay muujisay in 26 markab shalay oo khamiis ah ay ka gudbeen marin biyoodka baabalmadam ee badda cas halka maalintii ka horeysana ay 19 markab halkaasi ka gudbeen xogta ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in toddobaadkan oo kaliya 6 markab oo shidaalka ceeriin ay ka gudbeen xagga marinka Hormuz halka tirada guud ee maraakiibta marinka Hormuz ilaa iyo hadda galay ay tirada tahay 21 markab kuwaasi oo lagu soo waramayo dhankooda badankooda inay mareen dhinaca Iran taasi oo ka macnaa in ogolaanshaha Iran ay haysteen maraakiibtaasi waa hagaag markan waxaynu eegaynaa dhanka Israa'iil oo warweyn saaka uu ka soo baxay waa tahay warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in madaxa hay'adda sirdoonka ee Mossad uu xilalkii ka xayuubiyay madaxda laba waaxood oo ka tirsan hay'adda kadib qiimeyn gudaha oo lagu sameeyay waxqabadka cutubka sirdoonka sida uu baahiyay telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay saraakiisha shaqada laga eriyay ayaa lagu eedeeyay inay ku guuldareysteen fulinta howlgalo la xiriira qorshayaal lagu doonayay in lagu weeqo nidaamka ka taliya Iran warbixintu ma shaacin magacyada saraakiisha xilalka laga xayuubiyay iyo faahfaahinta howlgalada la sheegay inay fashilmeen kanaal 12 ayaa sidoo kale waxa uu horay u sheegay in
ku-xigeenkii hore ee madaxa Mossad xilka laga qaaday iyadoo lagu eedeeyay inuusan gaarin yoolal loo asteeyay mashruuc ayaa waxaa la sheegay in loo qoondeeyay miisaaniyad dhan 1 bilyan oo lacagta Israa'iil ee shakalka loo yaqaan taasi oo u dhiganta qiyaastii 344 milyan oo doolarka Mareykanka ah